waxaan anigu ahaa ruux adkaysi u leh qabowga iyo gaajada, balse waxaan isdhiibay markii aad ii ballan qaaday ballan been ah. aniga ahanad dhigay janaalka daawanaysan waa ahanad dhigay ayaantan xogaa shaqada iyo mashquulka iska batay. nin u dhashay dalka Ruushka ayaa wuxuu ahaa faqiir aad u liita, wuxuu cuna iska daayay wax uu xitaa muusan haysan, balse nasiib xumo waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah inuu nin taajir ah oo sigoo gurigiisa ka soo deganayo u arko ninka miskiinka ah oo aad u tabar daran, balse wuxuu u weydiiyey walaal maxaa kuu daran oo kuu qabtaa. ninkii miskiinka ahay ayaa si fudud ku yiri waxaad ii keentaa jaakad aan xirto oo kaliya, balse ninkii taajirka ahay ayaa wuxuu u ballan qaaday inuu u keeni doono jaakad uu xirto iyo cunto culus daqiiqada kadib oo la soo gaari doono sida ugu dhaqsiyaha badan leh. balse maxaa dhacay? ninkii taajirka ah markuu gurigiisa tegay ayuu wuxuu u arkay taleefankiisu saa'id loo soo wacayo horuna ka qabtay. nasiib xumo markii taleefankii uu qabtay kadib sheekadii ayaa la dheeraatay. ninkii miskiinka ahayna sidaas ayuu ku halmaamay. ninkii miskiinka ahayna Allah u naxariistee u dhimay, balse ninkii taajirka subaxdii dambo asigoo ka soo degayo gurigiisa shaqadiina u socdo ayuu arkay meydkii oo meesha yaallo. aad ugu naxay, laakiin waxa agta ka yaalay waraaqad. waraaqadana waxaa ku qornay ladan waxaan ahaa inta aadan ii ballan qaadin ka hor ballanqaad beenta ahaa ee aad ii ballan qaaday. waxaan anigu ahaa ruux adkaysi u leh qabowga iyo gaajada, balse waxaan isdhiibay markii aad ii ballan qaaday ballan been ah. taasi ayaana sababtay inuu jirkayga daciifo, iskana celi waayo qabowga iyo gaajada jirto. walaal haddii aad aragtid qoraalkayga waxba ii murugoonin, waayo waxaa jirta waqti aad wax ii qaban kartay, balse maanta waxba iima qaban kartay.